Madashan ay kulmisay ciyaartoydii hore ee dalkeena Soomaaliya ciyaartoyda nabadda Squadra dal Sabito ayaa waxa ay u dabaaldegayaan sanad guuradooda saddexaad ee ka soo wareegatay markii dib loo mideeyay ciyaartoydii hore ee qaranka Soomaaliya iyo kooxaha dalkeena Soomaaliya. Ciyaartoyda halyeeyada nabadda dal Squadra dal Sabito ayaa markaasi kulan ciyaareed sameeya maalin walba oo Sabti ah kuwaas oo ay markaasi ka kala yimaada qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka caalamka ay ka yimaadaan soo dhaweyn weyn ayaana loo sameeyaa. Daladan ayaa waxaa hogaaminaya macallin Aadan Xaaji oo markaasi kamid ah ciyaartoydii hore ee dalkeena Soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha nabadda Squadra dal Sabito oo kulan walba markaasi isku keena ciyaartoyda meel walba ay jiraan. Waxaa ka soo wareegatay markii la aasaasay ciyaartoydan dalkeena Soomaaliya ee soo maray inay yimaadaan dalka Soomaaliya iyagoona iska xog wareysa xaaladaha ciyaartoyda hore iyagoona sameeya kulan walba oo ay markaas isku yimaadaan sidoo kale lagu taageero ciyaartoyda markaasi haddii ay ahaayeen kuwa hore iyo kuwa dambe wax loogu qaban lahaa sida xaalad caafimaad iyo sidoo kale taageerid maaliyadeed ee lagu sameeyo. Waxaana ay ka kooban yihiin dhammaan ciyaartoyda kala duwan ee dalkeena Soomaaliya iyagoona markaasi u hambaliyay macallin Aadan iyo sidoo kale isku haynta ciyaartoydan oo isku keenay iyadoona ka soo wareegatay muddo 3 sano ah. Qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee dalka iyagoo ku kala sugan qaybaha kala duwan ee dalka dibadiisa ayaa markaa munaasabadda sanad guurada saddexaad ee ugu hambaliyay isku keenista iyo isku haynta ciyaartoyda markaasi halyeeyadii hore ee Squadra dal Sabito. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halkan waxaan hambalyo ugu dirayaa Squadra dal Sabito sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegatay asaaskoodii. Waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa aan aad ugu dhiirigelinayaa oo aan garab taaganahay Xaaji Aadan Cabdulle oo ah nin dhalinyaro ah oo isku mashquuliyay inuu mideeyo ururiyo ciyaartoydii hore ee qaranka. aad iyo aad ugu mahadsan yahay Xaaji Aadan. aad iyo aad aan kugu hambalyeynaa waanu garab taaganahay insha Allah tacaala. waxaanu ku leenahay hore u sii soco hawshana sii dhamaystir insha Allah tacaala. taariikhda ayaa ku xusi doonto waxyaabaha aad qabatay. assalaamu calaykum. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan halkaan uga hambalyeynayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba Sabito oo ah lajimadii hore ee Soomaaliya oo gaartay sanad guuradoodii saddexaad ee sanadka saddexaad. waxaan leeyahay hambalyo meel walba adduunyada dacaladeeda ku joogtaan hambalyo. sidoo kale waxaan hambalyeynaa gabdhaheena lajimada dhammaan meel walba ay joogaan. sidoo kale ayagana waan u hambalyeynayaa maadaama la gaaray sanad guuradii saddexaad kaasoo sababteeda u lahaa Sabito in la sameeyo ama ay isugu imaadaan lajimadii hore meel walba ay joogaan, meel isku soo dhaweeyaan, meel kubadda ku ciyaaraan, meel iskula xiriiraan. hormuudka u ahaa Xaaji Aadan. waxaan leeyahay Xaaji Aadan horumarkaa sameysay waa ku mahadsantahay. hambalyo ku leeyahay gudoomiye mar walbana waxaan ku leeyahay hambalyo. shaqada aad qabatay wanaagsan mid ku daysho mudan waaye maasha Allah. waxaan leeyahay hambalyo Xaaji Aadan dhammaan lajinada Sabito meel ba joogtaan. hambalyo. bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo magacaygu yahay Bashir Awaad Carab kana mid ah xiriirka Soomaalida kubadda cagta waaxda garsoorka ayaa waxaan jeclaystay inaan maanta halkaan ugu hambalyeeyo halyeeyada isboortiga Squadra dal Sabito oo sanad guuradoodii saddexaad la joogo. waxaan leeyahay hambalyo halyeeyada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtiin, khaasatan hogaamiyahooda weyn aasaasadooda weyn Aadan Cabdulle Mahdi Khayrow. Xaaji Aadan waxaan ku leeyahay jiro joog adiga iyo saaxiibada oo aan inta kusoo koobi karin oo ay ka mid yihiin macalinkeena Xamde Hilowle, macalinkeena kaleeto macalinkeena labaad oo asagana aan xeeto qaranka Soomaaliyeed macallin Faryare. waxaan kaloo inta ka salaamayaa saaxiibkay asagana Aadan. marka waxaan leeyahay jiro jooga taliya sanadkan sanadkiisa guuri barooqo wabillahi tawfiiq. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxaan halkaan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa
squadra della Sabito oo sanad guuradii saddexaad ay ku taagan tahay mardhow aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya sababtoo ah waa halyeeyada qaranka Soomaaliyeed oo hormuud u yahay Aadan Cabdulle Mahdi Qaylow waxaan leeyahay halkaada ka sii wad ilaa aad ka gaartay Soomaaliya oo dhan Ras Caseer iyo Ras Gaboni aad baan kugu hambalyeynayaa oo ugu hambalyeynayaa anigoo ku hadlaya magaca guddiga garsoorka Soomaaliyeed dhammaanba bahweynta sportiga legendka ahaa hore u ciyaari jiray oo haddana la magac baxday squadra della Sabito hambalyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الرحمن الرحيم anigoo ah magacayga Nuur Maxamed Cabdulle kana mid ahaa garsoorayaashii heerka caalami ee kubadda cagta Soomaaliya waxaan hambalyo leeyahay dhammaan lejamadii hore ee kubadda cagta baaskiilka atleetikada iyo intii maartay sporti oo dhan sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay aas-aaskii la squadra Salvato ayaan hambalyo leeyahay oo gudoomiye u yahay aas-aasaha Xaaji Aadan Cabdulle Mahdi Qaylow waxaan leeyahay shaqo fiican ayaa soo qabatay anagana waxaan ka mid nahay bahdaas maadaama aan hadda nin shaqada kubadda cagta ka fariistay ama retire ahay waxaan hambalyada kasoo dirayaa qurbaha waddanka dibadiisa gaar ahaan waddanka Jarmalka waxaan leeyahay hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنيقو كابتن هوري دقمة بونديري كابتن هوري دقمة شيبيس كابتن هوري كوحدي مقع عويني دي جون كارلو مقعيقو عاقل عبد الوهاب راقع عبدي وعن هامبريو بوغادي هالكان اوغو ديريا كوحدة اسكوادرا دلا سابتو oo uu hogaamiyo Xaaji Aadan Cabdulle Mahdi Qaylow oo saaxiibkay ah oo nin aad isku naqaan ah isku waqti isku dad isku xil aan ahayn runtii waxaan leeyahay squadra della Sabito hambalyo mar kale waxaan leeyahay hambalyo iyo inta la shaqeyso oo dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.